maalintaas waxaan joogay gurigeena aan deganahay asna wuxuu naga tagay 8 saac iyo bar oo kale magaaladoo tagay dib oo ii soo wacay wuxuu dhahay ilmihii yaa u soo laabanaa 11 saac iyo bar adii abaarad 12 ay ku beegan tahay dilkiisa maqalnay hadii goobtii aan tagnay meeshii soo yaala kadib waa soo qaadnay isbitaal Zamzam oo ceelashaan geynay kadib xoogaa kadib markay dhaqaatiirtii isku laabteen waa geeriyooday waxa ugu dambe ugu yiri waxay Cabduuli ha imaan ana ku iimaanay wadada waa xun tahay waa riski waa meel oo amnigeeda aan wanaagsaneyn tayada wadada aan wanaagsaneyn meelaha qaar ay ka xiran tahay marka wuxuu yiri ana xamar soo rabo ku iimaanay oo ku qasbay inaan xamar imaaday ha soo bixin after week waxaan u maleynayaa geeridiisa markaas maqlay dhulku yaalay afgambiyo dhulku yaalay xabada laba xabo ani waxa iigu darnay mid afka lagu dhuftay zaid afkaas xabadaha iyo ilkihiina way ku daateen abadahaas zaid u muuqdo dhiigiisan aad u baxaayaba marka lama baaro cadaalad ma jirto wax raadiyo oo isku xilqaamana ma jirto saxaafaduna ma lahan ururo xoog leh iyo qareeno iyo dad u dooda oo hay'adaha garsoor inta la xisaabtama u tagay yiraahdo war dhibkan aan haystay waxa ku dambeeyay marka wari waa la dilaa dada dilay Allah u naxariisana looga hara meel dambe oo loo sii raaca ma jirto wax ka hadla ma arkin oo nala soo socodsiyo say wax u dhaceen isay wax u jiraan wax naga dhahay ma arkin ilaa haddana wax baaritaan ku sameeyay aan wax faaraas naga la hadlana ma arkin